بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Een, maanta waxaan ka hadli doonaa briiska oo kamid ah dalagyada aadka muhiimka u ah ee dunida laga beerto oo aan usoo hormarinay ama aan waxawaaye kan labaad uga dhignay muhiimadiisa darteed. Marka waxaan u qaybi doonaa marka qaybo ayaan u qaybi doonaa. waxaan ka hadli doonaa horta briis muxuu yahay marka koobaad waxaan ka hadli doonaa briis muxuu yahay. waxaan kaloo ka hadli doonaa oo ku xiga oo noogu xiga historygiisa muxuu yahay, taariikh horta siisa intuu kasoo bilowday. waxaan kaloo ka hadli doonaa cultural practice-ka ama nooc beerashadiisa. waxaan ka hadli doonaa useskiisa ama qaabka loo isticmaalo. waxaan ka hadli doonaa conclusion oo ah wixii aan soo sheegnay inaanu wax idinka siino fikir guud ah. marka waxaa marka outline-ka naga ugu horeeyey rice muxuu yahay. rice waxa waaye waa caws loo isticmaalo sheeg in la beerto ama wuxuu kamid yahay groupka cawsaska. specieskiisa waxaa la yidhaha Oryza sativa. marka waxaa jira Asian rice iyo African rice. marka Asian rice-ku waxa waaye waa briiskan dhuudhuuban oo badanaa inta adduunka laga isticmaalo. African rice-kuna xoogaa wax yar uu ka dhumuc uga yahay. marka kan waa Asian rice aad u jeedaan. marka Asian rice-ku wuxuu leeyahay shakligan uu leeyahay ama qaabkan ayuu leeyahay. waxaan u gudbaynaa marka noocyada oo isagoo noocyo leh oo loo gudbay isticmaalkiisi waa kan. marka sawir waa kan picture weeye. marka waanu ka gudbaynaa. waa meesha ay macnaha waa sheekal xaguu kasoo bilowday ama historygiisu muxuu yahay. briiska asalkiisa waxaa la sheegaa inuu ka yimid Asia, weliba Aasiyada fog ee China. marka waxa meel la yiraahdo Yangtze River Valley meel la yiraahdo oo China ku taala ayaa asalkiisa laga helay. waxaa la helay 15 kun oo sano ka hor la helay. marka challenges-kii iyo waxyaabihii in dhulka waxawaaye la xanaanaysto ayaa waxay qaadatay ugu yaraan 3 kun oo sano. 12 kun oo sano ka hor ayaa marka si rasmi ah loo xanaanaystay oo wadanka dhulkan China degan dadkan inay yarta ay degaan laga xanaanaystay. marka sidaas daraadeed waxa waaye asalkiisa ama meesha loola laabanaya wadanka waa China. marka historygiisa iyo muxuu yahay briis waxaan kusoo koobaynaa intaa. cashirkeena koobaadna wuxuu noqon doonaa intaas. marka waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidaysto oo wax badan aad ka ogaa doontiin barnaamijkeenan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.